Hello friends, aad baan idin salaamayaa asxaabta. Clipka yara kooban maanta waxaan kaga hadlayaa waayo maalin kasta waxyaabaha ugu badan ee aanu la kulanno beeshanada Soomaaliyeed ayagoo lafahoodu ay yihiin harmofo ama waxa loo yaqaano osteoporosis. hadii jir qofku markuu weynaado uu da' noqdo waxa dhaca in jirkii laga soo nuugo in lafahii jirka laga soo nuugo hadiya jeer macdanaha ku kaydsanaa sida calcium oo kale iyo phosphorus oo kale macdanahaas oo marka qofku da'ayo iyo dhalinyarada yahay ama daad leh ama qofku aanu gaboobin jirku uu aad iyo aad u ka qaato cuntada iyo jirka nuugo. laakiin marka da' la noqdo aad iyo aad waxa looga soo nuugaa macdanaha lafaha ayaa laga soo nuugaa. markii macdanaha lafaha laga soo nuugo waxa samaysmaya ama noqonaya inay lafihii aad iyo aad ay hormofo noqdaan, taas oo noqonaysa hadhowna stage isu bedelaysa loo yaqaano osteoporosis. marka waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad la socoto xaaladda caafimaad ee lafahaaga adiga oo haddii ay ku dhacdo lafaha oo ay noqdaan daciifaan lafahaagu waxa si sahlan u dhacaysa inay lafahaagu si daciif si iska markiiba ay jabaan oo qofku tusaale ahaan oo kale hadii jeer misigta oo kale uu ka jabo iska qofkii kufay ama dhacay oo kale uu ka jabo. marka waxaana muhiim ah hadduu qofku da' gaaro in uu la socdo caafimaad qabka lafihiisa iyo inuu qaato hadii jeer supplementiyo sida calcium oo kale uu dhakhtarkiisana la xiriiro mar walba oo la xiriiro si uu uga hortago jabitaanka ku yimaada lafaha. aad iyo aadna waxay muhiim u ah inaad la sheergarayso qof aad jeceshahay si dadka waaweyn oo kale waalidka iyo aad bay waayo dadku markay gaboobaan lafahooda aad iyo aad bay harmofo noqdaan. marka waana iyo kulanti dambe.